السلام عليكم soo dhawaada Ramla in the kitchen wayni salaam akhwati meel walba joogtaan waxaan idin ka mahad celinaa sida quruxda badan aad mar walba ila socotaan ma sha Allah commentiyadiina quruxda badan hadii aad nagu cusub tahayna soo dhawaaw gacmo furan iyo qalbi furan ha hilmaaminina subscribe-ka inaad dhagka siisaan gambaleelkana furo video walba asagoo cusub soo soo gaaro okay maanta maxaan noo hayaa barnaamij cusub ayaan noo hayaa barnaamijkaas oo ah aniga oo keegan aad u jeedaan hagaajinayo ama sharaxayo oo qurxinayo keegan haddana aan ka sheekeynayo qiso cajiib ah ma sha Allah meel waa keegi ka daawo anigii oo hagaajinayo meelna qisadii ka dhageyso yaab isku heli karaba yaa ma sha Allah hadda ka bacdina waan soo badinayaa videoyaasha aan keega decorate gareynayo maadaama marar badan la iga codsaday qisadoodana way la socotaa haddana aan dhexgalno videogeena keegi waad u jeedaan halkan ayaan shaqada ka wadayaa qisadana ila dhageysta maanta waxaan isla fiirinaynaa qiso ku dhacday Rachel Oppenheimer waa gabadhii fiirsanaysa ninkii ay jecleyd oo qodaya qabrigii uu ku duugi lahaa wax ka xanuun badan miyaa jira may Rachel waxay dhalatay January 18keedii 1984 waxayna ku dhalatay Washington waxay la nooleed hooyadeed Denise iyo aabaheed Bill walaasheed Megan waxay ahaayeen family isjecel Rachel waxay ku kortay yaraanteedii nolol farxad leh waxay ahayd gabar mar walba happy ah qosol badan farxad leh waxayna jeclayd xayawaanka markay Rachel weynaatay oo teenage soo gaartay way isbedeshay gabadhii waxay noqotay qof mar walba xirxiran xanaaq ayada dhan sidii looga bartay farxadii iyo mar walba ayada waxay ahayd qof iska furfuran wixii dhana isa soo xirxiray waxayna bilowday inay raacdo asxaab aan wanaagsanayn oo gang ay ku xirato oo gangsteryaal waxay bilowday meelo xunxun inay aado waxay bilowday xalfadahan oo waxyaabaha qashinka ah sida drugski lagu cuno meelahaas inay aado ama laga cabo markii la sii dabagalay waxa gabadha bedelay maxaa ku dhacay la isweydiiyay waxay noqotay stress ama frustration ku furna ayada nafsad ahaanteeda waxaana keenayay ilaa 6 cunug oo ayada ay isla soo koreen oo isku asxaab ahaayeen ayaa dhinteen mid walba si gaar ayuu u dhintay iyo waqti gaar ah mid biyo ayuu ku dhexdhacay oo biyahaas hafriyay sidii ayuu ku dhintay waxa kaloo jiro mid isaga isdilay kuwa kale midba sabab ayuu u dhintay marka dadkii kuugu dhadhawaa marba mid aduu dhinto marba mid waxa waa maskaxdu isbedelay ma oo nolosha marka si kale ismoodsiisay noloshii dhan tan ugu saameynta weyneed dhimashadii waxay ahayd wiil ay aad iskugu dhawaayeen oo Corey la dhihi jiray wiilkaas best friendkeeda ayuu ahaa aad ay iskugu dhawaayeen waa isla soo koreen ceesho milix ayay ahaayeen dhimashadiisii waa midii ugu weyneyd oo bedeshay Rachel waxay isbarteen wiil la dhaho John wuxuu ka mid ahaa groupkii mafiyada ahaa John wuxuu ahaa wiil mar walba la xiro marna la soo daayo mar jeelka marna banaanka intaas ayuu u dhaxeeyay muddo ayay wada socdeen Rachel iyo John wuxuu ahaa John wiil control badan maseer badan mar walba ayuu wuxuu control jiray markuu la kulmo jirkeeda inuu ka soo uraayo ama tinteeda uu ursanaya barafuun nin kale ama wax buu ka baari jiray mar walba waa su'aaluhu ku badin jiray controlkiisa iyo maseerkiisa ayaa badnaa Rachel marmar jirkeeda waxaa ka muuqan jiray jirdil meel dhiig guduudan fadhiyo meel madow ah meel kuusan waxyaabo badan oo jug ah oo kala nooc ah jirkeeda marar badan laga arki jiray mar walbana walaasheed Megan waxay kula talin jirtay inay ka harto John waxay dhihi jirtay kuma fiicna waa qof ku jirdilaayo waa qof maseer badan waa qof maxaa waaye marna la xiraay mar la soo deynay waxay badana kula talin jirtay oo ay ku baraarujin jirtay inay kala haraan aakhirkii adigu waa la isfahmi waayay waa la kala haray Rachel iyo John sidii ayaa la isku daayay Rachelna waxay bilowday in ka gaabsato groupkii mafiyada ahaayeen
ay iskoolkeedii dib ugu noqoto nolosheedii ay dib u dhisto u habayso halkaas markay wax maraayaan waxaa la soo xiriiray ay haddana saaxiib noqdeen macnaha saaxiib caadi iska asxaab ah ay isdhexgaleen isku sii dheeraadeen wiil ka mid ahaa groupkii mafiyada ahaa oo Morris la dhahaayay asagii John saaxiiba ayay ahaayeen laakiin Morrisna wuxuu ku yiri Rachel groupka waan ka baxay noloshayda rabaa dib inaan u dhiso okay tiri soo dhawaa waa la maxaa la dhihi jiray oo la isdhiirageliyay iskoolkii lagu noqday nolosheedii waxay dhaheen dib ayaan u dhisanaynaa laakiin Morris saasay tahayna dee asxaabtiisii hore markuu meelaha ku arko ama xalfad ama wax hay waa la isdhihi jiray oo la isma goyn oo dagaal laguma kala tegin laakiin sheekada saan kuma toosnayno meesha waxbaa ku jiray September 27deedii 2002 Rachel waxaa soo wacay Morris oo wuxuu yiri maanta xalfad ayaan u socdaa asxaabteena hore ayaa xalfad dhiganayaan inakeen xalfad ayaan ka qayb galaynaa Rachel may diidin way baxday way israaceen meeshii ayaa la tagay cabaar ayaa la boodbooday la baashaalay xoogaa markay meeshii joogeen John ayaa xalfadii yimid oo awal maqnaa markuu xalfadii yimid ayuu wuxuu arkay dadkii wada baashaalayaan oo maxaa la dhahaa la'aantiis waqti fiican la qaadanayo oo meeshii la boodbooday uu xanaaqay wuxuu bilaabay dadkii asxaabtiisa qaar ka mid ah inuu feer ku bilaabo iyo dagaal meeshii waa la kala qabtay Rachel markay aragtay sheekadii inay xumaatay waxay tiri walaalayaal u kaadiya waxa waaye anuu iska baxayay inay soo baxday damacday oo albaabka marka dhinaciisii ay soo aaday ay damacday fur ayaa dharbaaxo looga keenay dhinaca dambe bab dharbaaxadii ka bacdi feer ayaa ku xigay laad gabadhiiba hal mar ayay miir beeshay intay nimankii dhan hal mar iskugu tageen feer laad wax walba waxay u reebeen malahan zaid ayay u tumeen ilaa ay ka suuxdo markii ay suuxday oo miirkii beeshay ayay qaadeen meeshii ayaa laga tagay waxay soo miirsatay Rachel ayadoo joogto guriga Morris garage-ka meesha oo baabuurta lagu xareeyo ayadoo ku xirxiran oo meel walba dhiig iyo wax ka socdaan oo halkaas lagu haayo ayay soo miirsatay nimankii meesha gabadha keenayna waxay sameeyaan way garan waayeen inay markaas dilaan maskaxdooda kuma jirin xoogaa jugeeya ayay ka ahayd maxaa yeelay akhbaar waxaa soo gaartay wiilashan inay Rachel ay bixinayso sirahooda inay dad u gudbinayso akhbaartooda maafiyadooda groupkooda sirahoodii iyo meelaha ay wax ku sameeyaan isay wax u sameeyaan macnaha sirtoodii oo dhan inay dadka kale u gudbiso xan ah ayaa soo gaartay marka waxay isdhahayeen waabiyo xoogaa oo bugeeya Morris-kana number 1 ayuu ka ahaa arrinkan oo asagaaba soo shirqoolay oo gabadha keenay xalfada maho meeshii baatiga ahaa so anyways waxaa dhacday gabadhii meesha iyadoo ku jirta ayakina kor ayay koreen guriga waxay ka fakarayeen maxaa sameysaan intee wax ku dambeyn doonaan pizza iska dalbadeen game ciyaaro iska galeen meeshii ayagoo iska baashaala ayaa waxaa gurigii imaaday Morris saaxiibtiis oo guriga ay ku wada noolaayeen gabadhii markay soo gashay garage-ka waxay aragtay gabar meesha ku jirto oo xirxiran oo dhiigayso naasay wuxuu jiraan maxaa kugu dhacay way wareysatay gabadhii xarigii wax ka furtay iyadoo rabtay inay gabadhii fakiso ayaa Morriskii iyo wiilashii kale isdaba ordayeen waxay maqleen shanqarta guriga in la soo galay ayaa ay ku ordayaan meesha imaadeen Morriskii wuxuu ku qeyliyay gabadhii saaxiibtiis wuxuu yiri bax korkor afaarahana ka bax ayadiina meeshii intay baxday ama police wici lahayd ama akhbaarta gabadhan hala caawiyaha iyo waxyaabo kale ay sameyn lahayd waxay sameysay danaheeday hore u raacatay waxay kaliya oo wiilashan ku dhahday waryaada aniga gabadhan iiga bixiyo gurigeyga wixii dhacay banaanadaas ku dhacaan iga wada aniga guriga ayada lahayd Morriskana ayada ayuu la noolaan markii gabadhii waa wadeen wiilashii meeshii ayaa laga tagay maadaama ay gabadhan tir iga bixiya ay ku qaylisay gabadhii way wadeen waa la israacay waxaa la aaday meel duurduuray gabadhii u wadeen intay baag ku rideen waa la tagay buudka baabuurkay ku rideen meeshii la aaday waxay bilaabeenbo gabadhii inay god u qodaan baagii ka bixiyeen waa fariisiyeen tooshash iyo waxbay shiteen waxay soo qaateen bahalkan oo lagu qodo godadka badeelka ayay soo qaateen badeelkii iyo tooshashkii wixii dhan gabadhii waxa waaye meeshii soo fariisiyeen gacmaha intay gadaal iskugu xireen waxaa dhacday John iyo asxaabtiisa qaar ka mid ah
inay qodayeen godkii gabadha lagu ridi lahaa. Morris iyo kuwo kamidana gabadha gadaal ay ka taagan yihiin, xabadna ay ku haayaan. godkii la qodayay way daawanaysaa. Johnkii ayaa qodayo, wiilkii ay wada socdeen waaye, ay hadda ka hor nafteeda ay ku aamintay. maxaa soo haray kan xabadda gadaal uga haayo oo ayadana daawisiinaya ama dhahayo fiiri meeshan lagu qodayo. asagana waa wiilkii ay isku asxaabta ahaayeen, ay isku fiicnaayeen, ay asagana aamintay. adduunkan waxaa aamin ma jiro, hala is ilaaliya gabdhow. marka godkii la qoday ayada intaas way daawanaysaa. wadna xanuun ka weyn maba jiraba godkaagii oo lagu qoday daawo. ilaahan ka magan galna anakii intii islaam ilaaha noo xifdiyo dhammaan awlaada iyo hablaha islaamka meel walba ay joogaan. John markuu dhameeyay godqodowgii meeshii uu ka soo baxay, Maurice xabadii ka qaaday. gabadhii ayuu wuxuu ku bilaabay inuu xabadii ku dhufto. hal kumuu dhufan, laba kumuu dhufan, ee uu ku waday dhash ilaa ay gabadha ka dhacdo oo nafta ay ka baxdo. intaas ka bacdi waxay sameeyeen gabadhii dharkii ayay ka siibeen, frantigii waxyaabihii ay qabtay dhan everything ayadii qaawan godkii ay galiyeen, waa ku duugeen, meeshii ay ku kala dhaqaajiyeen sidii niman aan waxba sameyninbo. gabadhii familkeedii waxaa waaye maalintii ku xigtay waa la tabay, waa la raadiyey, report laga geeyay booliiska. gabadhii 10 beriyaa Rachel la raadinayay. 10 beri ka bacdi meydkeedii la helay. meydkeedii markii la helay, wiilashii maafiyada midkii ugu yaraa ayaa xoogaa khalkhalay oo naxay markuu newsyaashii meel walba everywhere dadkii ka wada hadlaya, iskool meel walba wadadu maraba ee Rachel qabsatay. wuxuu sameeyay hooyadiis ayuu u tegay, wax walbana siday u dhaceen iyo siday ahaayeen iyo meesha ka bilaabatay iyo meesha ku dhamaatay kulli uu u sheegay. maamadii waa baxday, booliiskii u tagtay, akhbaartii dhan ee ayadana u dhiibtay. sidaas ayaa lagu ogaaday. wiilashii dhan waa la wada raadiyay kulligood. Maurice ka ahaa oo John ku xigay, kulli wixii meesha taagnaa wixii ogaa waa la soo qabtay. ka bacdi waa la xiray, mid walbana waxaa la siiyay punishmentigiisa ama cinqaabtiisa. Maurice waxaa lagu xukumay 25 sano iyo 10 bilood sababtoo ah asaga gacantiisa kumuu dilin gabadha, laakiin maadaama uusan hadlin gabadhiina uusan badbaadin, waxna uusan sameynin oo sheegin, that's why waxaa waaye punishmentigiisa ama cinqaabtiisa intaas ayaa looga dhigay. John waxaa lagu xukumay maadaama uu asaga gacantiisa gabadha ku dilay xabsi daa'in. wiilashii kaloo la socdayna ayakana mid walba wax ayaa lagu xukumay time. sidii gabadhii lagu duugay, wiilashiina waa lagu xirxiray. waxaa adduunka dhacdooyin aad u badan ayaa ka dhaca, kuwo waxaa jiro aad kaaga yaabinayo. hadda qisadan oo kale gabadhan wiilkan way aamintay. kii hore ay la sheekeysanaysay kaba soo tagbo, kii kale ay walaaltinimada u saaxiibeen oo ku heshiiyeen inay ka tagayaan waxyaabahan iyo dhibkan badan iyo maafiyadan iyo asagiina waa kana. asaga dhan aaba gabadha dhanba shirqoolka u dhigay, waxaan dhan isku soo habeeyay. maskaxda John bay ahayd oo waxa dhan ka dambeeyay, laakiin kana waxa waaye waa lagu shaqeynaya, shaqadu qabanay maaho. so meesha waxa waaye lama kala yareysto. asxaabteeda sharafta badan, akhwaati meel walba joogtaan, aday ka mahad celinaya sida quruxda badan aad qisadan u la socoteen. gabagabadii ayaa hadda soo gaartay, way inoo dhamaatay. keegiina sidaad u jeedaan decorationkiisii asagana ugu dambeyntii waxaa meesha u dambeysay ayuu soo gaaray. ilaa iyo bilow ilaa iyo dhamaad inaad ila socoteen ayaan rajeynaya. ha hilmaaminina subscribe-ka dhag inaad ku siisaan, gambaleelkana furo sidaad ugu noqotid qofka ugu horeeya oo daawada video walba oo aan soo dhigo. hadda ka bacdina insha Allah waxaan soo wadaa, hamogaaninina keegag badan sidaan u sharaxay, waliba kowda hore bilowga xataa oo karinta insha Allah asna waan soo gelinaa. inkastoo videoyaal badan oo karinay keega ay ku jiraan meesha, haddana waxa waaye insha Allah waan soo gelinaa, laakiin waxa inoo badnaanay si waxyaabaha sida aan u sharaxayo ama u decorate gareynayo keegaga. hadda videoga ku xigan insha Allah keeg aan ku sharaxayo waxyaabo cajiib ah aan hore loo arkin ayaan soo hamogaaninina insha Allah aan isla socono. videogeena halkan ayuu
noogu dhammaan doonaa. Keegii asagana waxa waaye dhammaadkii ayuu soo gaaray, wax ka dhiman male. Naash iyo taataabasho la ahayd, wixii kaloo dhimanaa ayadana waan dhameeyey. maasha allah, 2 kalar ayaan ka sameeyey keegan, purple-kii iyo waxa waaye cadaankii, sharaxaadii oo gold ah, magacii aan meesha ka maqnayn, happy birthday-dii iyo decoration-kii kore intaba. wixii su'aala waxaad igu weydiin kartaan comment section-ka, insha allah waa idinka soo jawaabaya. waxyaabahan dhan aan ka sameeyey haddaa rabtaan magacyadooda see yihiin, waxay yihiin, everything insha allah. creamka isticmaalina whipping cream caadi ah waaye, butter cream ma isticmaalin. so daawasho wacan meel walbaa joogtaan. السلام عليكم ورحمة.